Soomaaliya ha guulaysato cadowga ummadda Soomaaliyeed ha jabo aad iyo aad maashadku dhammaantiin wadan qaaliga ah oo maanta aan u taagannahay oo nasiibna u yeeshay anigoo ah wasiirkii gaashaandhigga annagoo la wareegayno ama sidii lagu dhisi lahaa ama lagu horumarin lahaa kala wareegayno taliska amisom oo muddadii u dambaysay gacanta ku hayay garoonka laga soo bilaabo 2011 ilaa iyo maanta waxaana ugu mahadcelinayaa inay ilaaliyeen isla markaana ay u ahayd haro ciidan oo ay ka sugayeen ammaanka nawaaxiga iyo xaafadaha ka agdhow garoonka ciyaaraha ee muqdisho stadium runtii waxaan filaynaa waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo walaalaheena amisom oo xaqiiqdii aan dhihi karno inay dadaal badan ay gelinayaan ama ay geliyeen ee dalkeenna ee naftooda iyo maalkoodaba ay u hureen qofka bini aadanka naftiisa ku hor lama hilmaami karo waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin maanta oo ay dawladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa amisom ay guulo waaweyn ka gaareen xagga sugidda amniga waxaana la gaaray in garoonka dib loogu soo celiyo gacanta dhalinyarada jecel ciyaaraha kala duwan si ay uga faa'iideystaan Soomaaliyeed weel walba ee joogto waxaan leeyahay hambalyo maanta sidaad u jeedaan waxaan dhex taagannahay garoonkii weynaa ee Soomaaliya ee lahayd ee caasimadda ku taalay magaalada Muqdisho stadium Muqdisho alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan mahad gaar ah u direynaa iyo hambalyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo shalay la wareegay garoonkan ee ciidamadii amisom ee deganeed kala wareegay oo gacan ku hayntiisa ee dawladda Soomaaliya hadda gacanta ku hayso sida ogtihiin booliiska Soomaaliyeed ayuu shalay ku wareejiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga marwo Khadiija Maxamed Diiriye sidii garoonkan dib loogu soo celin lahaa siday ahaan jirtay oo dawladda federaalka xoog u saartay ummadda Soomaaliyeed sumcadii iyo sharaftii iyo karaamadii iyo taariikhda ee lahayd dib loo soo celiyo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee joogto meel walba waxaan leeyahay garoonkii stadium Muqdisho waa garoonkii Afrika ugu qaalisanaa ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta aad ugu faraxsanahay garoonka magaalada Muqdisho in maanta dib loo furo oo isugu yimaadaan waxaan wadada ay isugu yimaadaan degmooyinka gobolka Banaadir ay isugu maato maxaan ku yiraahdaa dhammaan maamulka iyo madaxdiisa waxaan aad ugu faraxsanahay ciyaartoyda inay yimaadaan halkaan ayaa aad ugu faraxsanahay waxaan ku xasuustaa stadium Muqdisho iyadoo ciyaarihii ay ka socdaan ay ku ciyaarayaan kooxaha qaranka Soomaaliyeed ay ku ciyaarayaan waxa kale oo ku xasuustaa Allah u naxariiste Saade Cali Warsabaan ku xasuustaa aad iyo aad ugu faraxsanahay heer Muqdisho dantiina garta dhalinyarada magaalada Muqdisho inaad noolaataan haddaad rabtaan nabad inaad gaartaan furta garoonkiina maxaan ku yiraahdaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waaxda nadaafadda Cabdicasiis Goodax Barre iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada Basma Aamir ayaa aad ugu mahadcelinayaa waaxda nadaafadda aad runtii ugu shaqeyso nadaafadda magaalada Muqdisho dhan Soomaaliya ha noolaato ha guulaysto Soomaaliya kala qoqobnaan aan iska dhaafno dhibaato aan iska dayno ismacay baan iska dayno hal qoysaan nahay dalkan baan anfaco Soomaaliya baale Soomaaliya ha guulaysto ficilkii iska daaya Soomaaliya waa idin baryayaa dalku waa naga badan yahay beeraha Soomaaliya way naga badan yihiin waxay deeqaan Soomaaliya dhan iyadoo aan la gaarin bad iyo bari iyadoo la gaarin iyo xoolo iyadoo la gaarin waxaa nagu filan beeraha Soomaaliya dhan ka soo kala haray ilaa Afrika deeqaayo Soomaaliya wax isku quura ma ahan dhig inuu baxo maalin walba no mar dhig no mar Soomaaliya in la dilo no mar ma soconayso waa ma santiin والله runtii aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan imaado garoonka stadium Muqdisho caasimada Soomaaliya ku yaalo waa farxad aan la soo toobi tirin runtii intaan dadweynaha isku imaadaan garoontan ay muujinaysaa rabitaan ay qabeen dadweynaha meeshan ku nool marta waxa ku mahadsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ciidamada amisom oo fududeeyay inay ka baxaan garoonka stadium Muqdisho sida dhalinyarada ay u soo daabashadaan dadweynaha gobolka Banaadir ku yaal
si ay maalin kasta loogu ciyaaro ciyaarihii dadweynaha iyo kuwa gobolada waa wax dhalinyarada maanta jooda ay u tahay fursad weyn oo la soo joobi tirin waana ku faraxsanahay dhammaan dhalinyarada anoo aftooda ku hadlayo gobolka banaadir tu dhaqan iyo dhammaan Soomaaliyeed in ay maanta aad ugu faraxsan yihiin inay imaadaan garoonka weyn stadium muqdisho aad iyo aad ayuu maasantiin telefishinka talsan oo suuradii inaan codsan ay nala duubaan farxadda maasha aan tuheysano maanta waan maasantaa baraad waddan waxaan nahay dadkooda jecel ma fahmino marka waa in aan macnaha aan asadkii isaay muqdisho wixii loogu baahnaa oo dhan aan dhammaantoodba la dhammaystiro waxaan ka codsanayaa madaxweyne farmaajo dhammaan dowladda Soomaaliyeed in la dhammaystiro wax walba oo loogu baahnaa muqdisho waxay la tahay inay tahay Afrika garoonka ugu weyn sayaasha aaminsanahay gaar ahaan geeska Afrika marka waa taabo marka stadium muqdisho waa garoon weyn kaliya kubad cag maahan kubad kale jirto dawaala jirto wax baa jirto marka yeesan noqon mid meel iska fadhiya barnaamijkeeda iyo wixeeda hal dejiyo halaga dhigo mid macnaha maalmo kadib ay noqoto stadiumkii hore ahaa ku saalbaqaysay si aad oo kale in laga dhigo waxaan ka codsanayaa aniga in arintaas oo dhan la soo gabagabeeyo waa ku faraxsanahay waxaan uga ambaliyanayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta madaxweynaha farmaajo dadka arintan macnaha u qaabilsanaa macnaha inay soo dhameeyaan oo soo gabagabeeyaan